Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa goordhow waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha uu horkacayo ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, maamulka caasimadda iyo siyaasiyiin badan oo isugu jira Galmudug iyo dowladda dhexe. waa markii ugu horeysay Ra'iisul Wasaare Khayre uu tagay Dhuusamareeb inta uu xilka hayay, waxaanu halkaasi u tagay xalka gaarista arrimaha siyaasadeed ee Galmudug. waa markii ugu horeysay Ra'iisul Wasaare Khayre uu tago Dhuusamareeb inta uu xilka hayay, waxa uuna u tagay halkaasi xalka gaarista arrimaha siyaasadeed ee Galmudug iyo sidii looga arrinsan lahaa doorashada maamulkaasi oo la iclaameeyay in ay bilaabato 4 bisha na soo aadan ee July. Xasan Cali Khayre wali kama hadlin safarkii uu ku tagay Dhuusamareeb, waxaana la filayaa in halkaasi uu kulamo caawa kula yeesho madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb ku sugan, sidoo kalena uu warbaahinta la hadlo.